السلام عليكم wiilkan aad arkaysan magaciisa waxa la dhahaa Afshin wuxuu ka soo jeedaa dalka Iran wiilkan arkaysa maaha ilmeer waxa laga yaabaa sawirka marka aragtina istiraado qof maanta ilmahan yar muxuu yahay ilmeer maaha laakiinse uu gaaban yahay dadis waxa la sheegay inay tahay 20 sano jir What? wiilkan dhererkiisa waxa lagu cabiraa inuu yahay 65.25 cm dhererka uu leeyahay wiilkan waa dhererka ilmaha jira 5 bilood yani ilmaha 5 bilood jira dhererkiisa weey waxa laga yaabaa wali inuu san kicinba isku dheeriin ana marka aragtay muuqaalka dabcan muuqaalkiisa aragtidoo kale waa uu aqoonsanaysaa waxaan inuu ilmaha aad u yar yahay dhererka ahaan marka loo eego abuurta ilaahay inaga maadaama ilaahayna dheerisiin alxamdulillah sanadkiina soo dhaafay 2022 dhamaadkiisa waxa loo aqoonsaday inuu yahay qofka adduunka ugu gaaban wiilkan arkaysa magaciisa waxa la yiraahdaa Edward Hernandez korkaas wiilkaas ku jira marka hore qofka ugu gaaban adduunka laakiin markii Afshin la soo helay ka bacdi Afshin baa wuxuu noqday qofka ugu gaaban adduunka dhowr jeer waliba la cabiray haddana wuxuu noqday qofka ugu gaaban adduunka ana aqoonsatay Guinness World Record waxaana guddoonsay biladan wuxuu ku hamiyay sidoo kale wadan walba adduunka inuu ka tusaalo kale inta markan arkasaan wuxuu tagay wadanka Imaaraadka wuxuuna ka sii tagay dabaqa ugu dheer ee Burj Khalifa wallahi waa qofka ugu gaaban adduunka iyo dhismihi ugu dheer adduunka wiilkan arkasaan gaabnidiisa waxa ka qabsaday caqabad ana kamid ah tusaalo kale in iskuuladiisa waxbarashada ay awoodi waayeen inay waxbarasho u dhigaan sidoo kale wuxuu ku dhigtaa guriga waxbarashadiisa dharka uu xidho markaan arko dhar baa lagu cabiraya dharka uu xidho ninkan dharka ku cabiraya wuxuu sheegay inuu 3 jir ilaa 2 jir dharkan ugu talagalay balse dharka wali waa la sii yareynaya muuqaalkan maanta intaas ku saabsan yahay waxaan ka codsan lahaa haddii qof asxaabtaada kamid iska shaqaysan yahay mislee waa gaaban tahay muuqaalkan u sheeg garaa ku xibri qaato sababtoo dadka si gaaban buu arkaya assalaamu calaykum